maamulka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa deeq raashin oo ka kooban noocyadiisa kala duwan waxa ay gaarsiisay 500 oo qoys oo kamid ah dadka danta yar ee ku nool degmada Boondheere. qoysaskaasi ka soo jeeda dadka danta yar ee ku nool degmada Boondheere isla markaana la gaarsiiyay deeqda raashinka ayaa ka mahadceliyay iyagoo sheegay in xilligii ay ku habooneed la soo gaarsiiyay. gudoomiyaha degmada Boondheere Seenab Yuusuf Weliye ayaa goobjoog ka ahayd goobta deeqdaasi raashinka lagu gaarsiinayay dadka danta yar, waxaana deeqdaasi raashinka ay ka imaaday dowladda Imaaraadka Carabta. deeqda kadib ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay gudoomiyaha degmada Boondheere Seenab Yuusuf Weliye iyadoo u mahadcelisay dowladda Imaaraadka Carabta. waxaana siiyay deeqdaas oo maxay tahay ummadaas ugu kaalmeeyay ugu gargaaray Imaaraadka Carabta. waa uga mahadcelinaynaa barkee waxay degmada Boondheere waxaa degan dad danyar ah, dad masaakiin ah, xamaalata ah aan waxba haysan. sidaas daraadeed anaga wayna anfacaysaa cidii maxay ahayd wax yar ba Allah ka dhigay noo keenta. 500 waa wax fiican ba 500 oo qoys ayaa caawa dabkeeda maxay ahayd shidanaysa oo ku faraxsan waxa Ilaahay u keenay oo Imaaraadku keenay laakiin Ilaahay baa uga soo qaaday maxay tahay inagu deeqeen. aad baan ugu mahadcelinaynaa Imaaraadka. waa gartay raashinkaas xilliga maxaa ku soo beegay dadkaas la gaarsiiyay? waxaa ku soo beegay waa mari horta dhibaatada jirta qayb ay ka tahay oo annaga ayaa cabasho gaarsiinay Imaaraadka ina dad baahan oo dhibaataysan aan hayno waxay noogu gargaar karaan inuu gargaar ayaan ka codsanay. ta kale maxaan ku iraahdaa waxay kamid tahay dadaalka iyo waxqabadka gobolka Banaadir iyo degmooyinka ay muujinayaan oo ummadooda u danqanayaan ay kamid tahay. Nuur Saciid Deeq Raashin TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.